بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا ليال وإيجا جو فيسبوك ما إيجا هلايسن موي ما ويرا أقول سعدوا بيابان هاي فيديو هذا الدوب مالو كبحو ما غان والله مالو هذا ما غان إلى إيجا سريو مركا ولا ليالو وحن ربا إنا وحير كهدلو وحير وروب لكو سابسن حلي ما سكريو waxaan rabaa dawladda guul iyo gobonimada ay gaartay sharafta iyo wanaaga iyo qabka iyo Soomaaliyeed iyo dadka maanta dalka xadgudubka ku waday oo la buriyay dad kalena ku soo daba jiro insha Allah bidnillaahi kariin marka walaalayaal waxoogoy Facebook miyamug waxba iga halaysan waxba iga qaldan marka waxa idin leeyahay walaalayaal dadka Soomaaliyeed qabkayniya soo noqday sharaftayniya soo noqday wanaagayniya soo noqday dadnimadayniya soo noqotay wax walba oo Soomaaliyeed soo noqdeen waxa la yiray wax walba ilaaha horta lagu mahadiyaa alxamdulillah shukr rabbil alamin madaxdayna waa u mahadiheynaa madaxdayna waxa leena hore u soco taageeradiina nahnay oo baraha bulshada idinka taageernaa oo qalbiga idinka taageernaa ولا لي لورت واكو حما معليش waxa waaye Facebook miya moog waxba iga halayso waxba iga qaldan marka hadda fiidiyoga hadda duubay isla markii waa laga bixiyay ma aqaan ma shirkada weerar igu wato ilaan ayaanta weerar la isku waday waxaan heer galbeed iyo tuugo iyo waxa leh marka walaalayaal waxa idin sheegaya Soomaalinimada horta inay shaqeysaa fiican maxamed cabdullaahi farmaajo 4 sano 5 sano waxa ka dhiman bishaan hadda ku jirno iyo bisha kale intuu soo qabto waa ognahay ciidamada u dhis waan ognahay sharaftii iyo wanaaga iyo karaamada Soomaaliyeed soo noqoto waan ognahay dadka dalka shasheeyaa sida looga buriyay shaladana ugu dambeysay ninkii Afrikaanka ay waad ogeedeen waxa ku soo xigto midowga Yurub 10 dawladeed ee dawladda warkeeda diido calaykum asalaam ku soo xigto warqadeeda waa taala madaxtooyaday taala warqadooda isbuucan gudihiis waa maqlaysiin safiiradaas laga buriyay waad maqlaysiin insha Allah bidnillaahi kariin waxa idin leeyahay Soomaalinimadii oo la yaqiinay qabkii karaamadii sharaftii soo noqotay waxaan rabaa rooblo ina meeshan waxa ka yiraahdo rooblow dadka qaba horta waxa taa ra'iisul wasaare qabiil aatay matid ra'iisul wasaare Soomaaliyeed matid waxa la yiri umri tagan ceeb laguma sagootiyo Soomaalida kuma maada umri tago ceeb laguma sagootiyo 3 bilood amba 4 bilood ku dhiman wan ku baranay waxa tan waa baranay shalay waxa magacaawda nin la leeyahay ina adeerka waay u magacaawday safaarada aan ku leenahay dalka Turkiga oo laba xokayn haysa xogyahan saddexaad oo magacaawday ninkii safiirka haduu ku yiro looma baahno ninkii safiirka looma baana dadar waxay tar 24 saac gudood ku soo gal wadanku kula jooga waxaan ku sheegayaa umri tagacab laguma sagootiyo ina adeer kursiga hadii xataa qabiil la yiraaho hawiya ku matasha hawiya ina kala xigsato haddana habar gidirta dhaxdaada si kala xigsatid waan ka xumahay aadan ugu xumahay nin dhano weyn oo gar iyo gafuur laatay nin u dhaartay kitaabka jaamaco gacanta u saaray umada Soomaaliyeed ila ras asar ila ras gaboni inta ku nool inaad ra'iisul wasaare u taag yaani ku waxaysa war 30 milyan meel walba wata 30 milyan ma la yaqaan meel walba wada ila balcad ila waxa wareegaysa sharaf iyo wanaag malhid war waxa leeyahay umri taga ceeb laguma sagootiyo waxa waaye karaami iyo sharaf horta malhid waxa leedana ma jirto waxaan ku leeyahay qabyaalada iyo qurunka iyo masiibada wadid aday kugu soo naqay maana anaka nagu soo naqamayso anaka Soomaaliya anana kursiga anaka nagu matasha ya anugu matasha kuma matashid in adeerka kuma keesanin kuma soo doorani in adeerka 4.5 lagu qaybsaday war wax ku cista malihid oo aqoon ku celisa malihid oo diin ku celisa malihid oo sharaf ku celisa malihid oo wanaag ku celisa malihid waxa leedahay ma jirta ku yaray qof dhintay oo dhintay aad tahay
robla qof dhintay ee nolosha ku dhintaata wallahi billahi tala qof nolosha ku dhimtaata waxa la yiri cumri taga ceeb laguma sagootiyo ya waxaan ku leeyahay walaalo waan ku taaganahay waqtigan waa dhamaaday dawladdan waa hana qaaday shasheeye waan iska celinay dawladdeena garabka ka taaganahay madaxweyneyna taageersanahay qabiil malihin Soomaaliya hadaan nahay qabiil malihin dawladaan leenahay qaranaan leenahay qabiil malihin qaranaan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed wax way fahantay dhalinyarada Soomaaliyeed waa aqliyeysatay dhalinyarada Soomaaliyeed dhal iyo waayeel Soomaali way aqlisatay 30 sano wallahi billahi tallah 30 sano ninkii maanta 30 sano wax ku fahmi waayo weligiis wax fahmi maayo waxna fahmi maayo adduunka dacaladiisa wada tagnay meel walba ku rafaadnay waxaan kanana waa ogaanay Soomaali inaan hana waa ogaanay fahmi shalay hadii nagu siri jiray heeray bala idin nacab heeray bala idin jecel heeray bala idin waxa waa diidnay Soomaalinimo aqoonsanahay waxaan aqoonsanahay maxamed cabdullaahi farmaajo inuu madaxweyneyna yahay oo qabiil ahaynin waa aqoonsanahay waxaan aqoonsanahay dawladdeena Soomaaliya waxaan biriga taageersanahay wallahi billahi tallahi ilaa iga sareeyo qabiilna wax u taageerima qolana wax u taageerima kan wax ii qabtay ee qabkeyga iyo karaamadeeda iyo sharafteeda iyo cisigeyga soo celshay ya ee calanka Soomaaliya sharaf u yeelay ee maanta maxamed cabdullaahi farmaajo jilbaha laga haasto maaraad oo shalay saa ogaanta i yeelay inuu siciidani caawa soo buriyo oo yiraaho waaba niigu kalsooniye iga baxa ee yiraaho maxamed cabdullaahi farmaajo calaaqaadka aan samayna yiraaho guul iyo gobonimo sharaf iyo wanaag iyo adkaysi ku timid iyo sabar iyo wixii ku timid farmaajo waa mariixaan farmaajo inuu mariixaya waa ognahay mariixaan dalka malamiya Soomaaliya waxa idin weydaa dadka Soomaaliyeed aan wax weydiyaa mariixaan dalka wax kalamiya ilan adduunka Soomaali qabaa'il waa sax dalkay wax ku leeyihiin waa mariixaan waan ognahay sharaf iyo wanaag oo keenay anaka ku wadano ano hawiyaan ku wato afarmaajo wato kadadaf kandaay farmaajo waa mariixaan farmaajo waa mariixaan wax kalo la sheego lama yaqaano wax kale oo la qoro oo la akhriyo lama yaqaano lama dhigi karo qodob inta loo keenay intaas ku qaldaya lama dhigi karo intaas ku xun yaa lama dhigi karo intaas ku wacaya wax oo dhaliil loo mahay waxa loo haya farmaajo waa mariixaan حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله إلهو إيمانك نو نجي إلهو إيمانك نو نجي روب لو أنا كان متشهوية كونا مرة عسنين قبيالات داد ودد يقرنك يقركاد ودد والله إنا نكوكو رعسنين صدن جران أنا صدن سنة جرا صدن إلا بس سنة جران عمري جيجو صدن إلا مجرواي دولة سوما أكد waxaa laga yaabaa adoo xumo madax xun inay dawladda maxamed siyaad ku soo wax bartay oo wax barasho fariye shay anigana qax iyo qaxooti iyo rafaad iyo carab ina u soo tahriiba ilaahi qoray anigana biriga ka wadanisan maxaa wadasana ma taqaana ilaahi wuxuu ku garasiyaa la gartaa wuxuu ilaahi ku garasiyo garaadka ilaaha bixiyo شرفتني إلها بحيو وناقني إلها بحيو الحمد لله شكر رب العالمين وقتنا إلهي نسو قرسيي إيه شرف إيو وناق إيو عسقين كشقينو دالين يرد الصوماليات وحلا يقول إيو قبنمو walaaltini maana deeqdo dawladni maana deeqdo qarana na deeqo qabiilna ma deeqo maamul goboleedna ma deeqo waxna deeqo ma jiraan oo qaran ka sukeeyo Soomaaliya waxa idin leeyahay dadka Soomaaliyeed ee waxa leeyahay wanaag iyo sharafta jecel walaalayaal waxa idin leeyahay qabyaalad midayna saarto waan ognahay qabyaalad midayna dhigto waan ognahay qabyaalad sharaf dhac iyo wanaag maxay kale nasiis ishaqdo maanta hadana shalay maxamed siyaad la bixin lahaynin horta dadkii maxamed siyaad bixi ay kan bixantay ay ka naga dib qabaan waxay naga dib qabaan 30 sano oo dhiig mar ee dhibaato ee rafaad dadkii fidnadaas kiciyay ilaaha idinku dhaarshay jabhadii fidnadaas kiciyay oo wadan degan oo nabada oo meesha rabtid salligaada inta dhigato ina cabsi ka qabinay seexaysid salligaada waayada
ماشي إلا راس كبوني إلا راس عسير صلي هذا ما شربتها بين مذو هذا سقال صعوبة بين متى واسي حجرت برشنت هذا أنت داريسته أهوردنا بدو هورد جرتي هوردنا بدو أهورد جرتي دتكي نبض بربرية دتكي دقالة درادة دتك جلية دتكي دتك السلك أنت كي قحوتك كدقي دتك نار ما هنا جنم هلا يعني لا لقى عصدي سومالية علومada way ogyihiin way ka wacdiyaan dadkaas naar maahine jannan ma helayaan meeqa qofooda ku dhimata bad meeqa baahi u dhimatay meeqa madfac leefay meeqa maanta waxay soo doonsano fidnadooda dadka kiciyay ee hadda ilaa waagadan inay nool yihiin qodod qaarkooda nool muuse bixiya ka mid ah iyo faraale ayaa ka mid ah ilaa waagadan waxay rabaan inay fidna inta kiciyaan qoran dableylo ortayaan war ilaahay ka cabsadee toobo keena qoftii dhimata waaba dhimataba qoftii noolo faroola ka koowe oo waxa ka koowe ninka la leeyahay muuse bixi waxa idin leeyahay ee ku faano jabhadii dumiyeen ee ku faanaan waxa idin leeyahay adduunka maanta birigan waa la jooga birina waa laga dhimaha fidna hurida ninka kiciina allah naclado nabi maxamed fidna hurido allah naclado yiri waxa idin leeyahay walaalayaalow waxa leeyahay dadka kursiga u maleeyo inuu weligiis ku fadhiyaayo oo u maleeyo roob la kamid yahay qabyaalad ku soo aruuri saddexdan bilood ka faa'iideyso ballan waxa laga qaad inuu kursi qabyaalad lagu keenay inaynu ku fadhiyayni farmaajana waa soo noqon qof la tartamaysa malo xamar waa laga kala baxa waa la kala adkaaday mucaarad qaradumis iyo dawlad waa kala adkaadeen xaq iyo baadil waa la kala adkaaday runta idin sheegaya dawladihii lacagaha bixi jiray biriga farmaajo lagu hakaastaan ay leeyin anaa ku soo saaraya anaa lacag ku baxay anaa saan ku yeelay calaaqaadka ii sameey ayakini waa la soo wada buriyay daba dhilif maxaa u dambeeyay deebta inuu dhex fadhiisto daba dhilif maxaa u dambeeyay dhooqada xaasa sheekh xooyar dhiiqaad ku dhex jirtaa dhiiqaasaa ku dhex jir biriga dhiiqo aa ku dhex jirtaa farxaan oo maalko dhaamagad dhiiqada maanta ay ka dhex fadhiyaan dadka shalay warka ka soo qoysayno caleeri gaaw yalla yaa taay yaa hayo cali la ilaha illa allah ya ahbal alir ana arba qana moqta qofta markay ku danaysa cali ya ahbal ya xayawaan ruuxi ingali ciyaalde adduunyo haddana waxaa noo soo socoto qabar caajil oo yir moqta carabta markay qabarka degdegta leeyahay qabar caajil warqad ee toman safaaradood maanta xalano ku yaalaan ee dalka ku xadgudbeen ee midowga Yurub ka tirsan mar dhow waxa leeyahay dalka idin kala ma rabe gow heer galbeed dadkan u jeedina hatta in sheega heer galbeed dadkan u jeedinay turkiga noo joogo dalkayna ana kaale karaamo iyo sharaf markaa isku yeeshaan karaamo dhalay ogow karaamo iyo sharaf markaad isku yeesho ee wanaagaada muujiso ee sharaftaada muujiso ee qabkaada muujisa horta lagu helaa Soomaali Maxamedna way soo baraarugtay waxa la yaa dadka baraha bulshada ka shaqeeyo ee nabad iyo nolol waad mahadsantihiin waan dagaalanay magacyo badan noola bixiyo baraha cayayaanka bulshada noola bixiyo wax walba lacag ay qaataan la yiraaho meel walba ka dhacno sharaf iyo wanaag ana kaale maanta sharaf iyo wanaag ana kaale Soomaali haddaan ahnay dadka maanta dawladnimada u dagaalamay sharafta inay soo noqoto u dagaalamay ee baraha bulshada yaa wax walba yani dawlad waa idin sheego dawlad maxay ka dhisantaa dawlad waxay ka dhisantaa oo laga dumiyaa dhaqaalaha amniga baraha bulshada ay ka dhisantaa baraha bulshada ana ka hayno dhaqaalaha iyo amniga farmaajo noo haayo gul iyo gabanimo shaytaan walba wax sheega ana ka daba soconaa usha ka daba wadano baraha bulshada dadka joogo waxa leeyahay ma sha Allah jazakallahu khair إلهي ما الله إنك سي شرف يوناك عسنا كوضا نولاد وانا كوضا نولahayna إن شاء الله بإذن الله كريم دفاع قرنا كجرنا دفاع هرنما كجرنا تالك دقالما قرق دقالما أنا كان أفكا كدقالنا أفكا فرحا كدقالنا وضنا برها برشدو كاسمع فرما جمانتا انت تاغيرسن سومالي وينا تاغيرسن سومالي وين وان معاني دباتان أرقني ودن شاشيان نقول قمستي ودن كيبا كوباهني أغليان دلني هو ميرسني ميرك وانا قلي مركو حادي لا يا سوماليا ولا كولستي
soomaaliya shashay waa ka guulaysanay qaradumis waa ka guulaysanay sharaf iyo wanaag waa ka guulaysanay waxaa rabaa xildhibaan sakariyo wuxuu ku soo celcelshay waxaa maqli jiray yaa qofta markay hadalladeeda isburiyaano oo xataa diyaaradahu soo iibsado magacooda oo inta aqooni waayo magac kale u bixiyey aa dowladda soo sheegto haddana waceera magacii kala qaatay oo haddana waxay ahayd lacagtoo kasoo bixiyey ma 8,000 kasoo bix jiro 8,000 waxay naqaysaa 32,000 8,000 5 diyaaradood 8,000 waxay naqay 32,000 warqad oo wuxuu soo dhigay 780 iyo xoogay waaba hilmaaba madaxa xanuun 780,000 oo dollar ku qoranta Soomaaliya waxay dishay mucaarad iyo muxaafadna waa laga saftay diyaaradaha inuu u wada shabaab waa la ogaaday inuu u shaqeeyo waxaa leeyahay dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoftii amniga waxa wado qoftii amniga barfurayso xabsiga jilcow hala galso asiga ha lagu bilaabo xildhibaan sakariya asiga lagu bilaabo aniga laynaca aniga ahayd ina doorashada cad yaa ku baahan 30 sano wadanka 30 sano waa ka shaqaysatay uma shaqeynay wadanka 30 sano waa ka shaqaysatay shaydaannimo iyo waxaana kula jirtay 4 sano taageeray dowladdan 4 sano taageeray hadda maxaa ka dambeeyay 4 sano waxaa ka dambaysa dowladda TPLF ee la shaqaysaa Kenya la shaqada Kenya TPLF Kenya waa wada waxa lagu dhigay jilbaa dhulka loo dhuftay TPLF na waa u jeedaa haysa farmaajo waxas u shaqeeyo waxas u fadhiyo farmaajo dalka inuu leeyahay mutaakidiye wuxuu sharaf iyo wanaagood mutaadiksaday dalnimada inuu mutaakidiyay markaas waxa leedahay hadalii oo mucaaradka sheegay hal mar daraasada ku dhameystirtaa ku isbuucan dhaxdiisa haalaha mucaaradka sheegay oo dhaay dawlad kama jirto wadanka wixii dhamay hal mar daraasad intuu ku soo ruf ku siisay 4 sano waxa taageeraysaa marka hal isbuuc ku soo koobtaa ku daraasada waa buuxisay dawladda xilligeeda dhamaad xilligeeda intuu joogaa dawladda xilligeeda dhamaad xilligeeda aaway adiga xildhibaannimo sheegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligiisa war dadka aqli yara oo soo aqli sanbuuqnimaan anigu waxaan la yaabanahay xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka horeeyay doorashadiisa ka horeysay iyo dhicidiisaba ka horeysay wuxuu taagan yahay madaxweynaha waqtigiisa ma waqtigaad xooya xasaanada ku faanaysa maxay tahay hadii Farmaajo meelaha isla taagantay hal doona isla saarantiin waxa isku la saarantiin adiga xildhibaan waxa sharciga baasisay oo dawladda bedelayso madaxweynaha bedelayo xukuumadda bedelayso oo baarlamaanka bedelayo lagu shaqeeyaa aqli sanbuuq alla waxa eray dad dhaxta waan baranay maxaa kartaa baranay wuxuu yiri Puntland taga siciidani naftiisa uu cabsaday wuxuu yiri diyaaradii keenaysa ma jirto yiri hadda Puntland aga soo dhigtay oo ku xiraa rag hadda ta garoonka garowa ka dago sakariyo waxa ku leeyahay garoonka garowa ka dago ee dani ha ku dhaafo war wasaaradii beeraha shaqada ku lahayd waraabka shaqo ku lahayd oo beenta ka sheegtay tiri waa ila ogeed way ku inkartay kulma ogiyay ku tiray aniga shaqo kuma liyay tiray oo hatta hadda wasaaradda beeraha iyo waraabka dalbayso waa inay marto garoonka yani hay'adda ka shaqeyso arrimaha dibadda duulista iyo hawada waa inay u marto weydiisato tira daroonkaas ka raba ka bacdi daraasad dheer la galay waqti la siiyo ka bacdi loo soo dajiyo waxa marta ma jirta ku hay'ada marta ma jirto waxa ku waraabka iyo beeraha shaqo yaa ta adiga wasiirka beeraha iyo waraabka ma tahay halaas warsada Soomaaliya wasiirka beeraha iyo waraabka xildhibaana tahay wasiir matid daroon xagee u wata hadana shabaab la shaqeyn daroon maxaa intee u wata ya marka insha Allah bidnillah kariin wa idi salaama wax yar igu sima